wiil youtuber ah oo Sweden dhinaca ka joogo oo waxay rabaan ay u sheegeen gabadha waa la qabaa nin baa qabo oo Faransiisa oo muslina ay soo carartay adiga waagu u daray waxaas dhanay wadeenay rabeen in ay gabadha xaajiyadiida sharafteeda ku baabiyaan laakiin ma dhacayso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel kasta joogtaan waxaad leeyahay soo dhawaada baryahan waxaad ogtihiin in baraha bulshada ay ka socdaan arrimo la yaab leh arrimahaasi oo ah in marwo uu nin qabo oo meel degan looga daba yimaado la yidhaahdo anaa qabay waxaad ogeydeen in hadda ka hor gabar bilo ka hor un ay ahayd gabar uu nin youtuber ah markaasina caan ah uu qabay ama uu guursaday laga daba keenay toddoba canug iyo ninkii odayga ahaa ee qabay toddoba canug iyo ninkii odayga ahaa ee qabay laga daba keenay weliba caddaymo la keenayo sawiranta arooska ilmihii iyadoo gurigeega joogto iyadoo ninkeeda la joogto wixii oo dhan la keenay marka waxay noqotay marka ama kaag iyo arrin la yaab leh oo bulshada ama mujtamaca ay si kala duwan uga falceliyaan oo culimo waaweyn ka hadashay oo lala yaabay oo xaaladdu adkaatay waxaad kaloo ogeydeen dhowr xaalo oo noocaas oo kale ah inay ka dhacdhaceen soomaalida gaar ahaan dadkan qurbaha u dhoofo markay qurbaha aadaan inay waxyaabaha noocaas oo kale ah ay ku kacaan oo gabadhani haddii ninka qaba isfahmi waayaan isaga oo qabo intay ka tagto nin kale ay guursanayso maantana waxaa lagu dhagan yahay oo baraha bulshada lasla dhex maraya 40 saac inay dambeysay hadalhayntuna ay ahayd nin dhalinyaro ah oo la yidhaahdo maxamed buskud oo mar dhow un soo bandhigay xaaskiisa gabar hore u qabi jiray bay kala tageen waxyaabaha ninkan lagu xasuusto dhalinyarada waxaa ka mid ahaa inuu dhihi jiray aniga haddaan soo dhigo xaaskayga media youtube tiktok facebook malay ahaataba oo qof kale uu ila arko waan waalnahay cilaaj halii geeyo oo sheekh rusheeye sheekh lii jiray halii geeyo hay rusheeye arrinka isaga ah ee la yaabka leh waxaa bedelay in 24 saac isaga xaaskiisa oo wax wada duubayo ay hal mar duuduub usoo galaan media xaaska hore oo sidaa u dhihi jiray waa ay kala tageen calafkooda ayaa dhammaaday kadibna waxa uu guursaday gabar kale gabadhii kale markii arooska saaga soo baxeenba waxay isla imaadeen tiktok live tiktok iskala soo dallaceen youtube ayaa hadda si wada jir ah usoo wada fariistaan ama ay usoo duubaan waxay rabaan ma xuma in wax la wada duubo oo ninka iyo gabadhu ay wax wada duubaan ma xuma oo rag baaba gabdha ajaanibka ah la duubayo oo muuqaalo la sameynayo oo la safrayo oo wadamada dheer la aadayo oo hadduu alla ku idmayo hoteelo wada degayaan oo waxyaabo badan oo barnaamijyo wada sameynayaan aan waxba ka dhexaynin oo walaalnimo iyo isgarab qabasho iyo youtube ila kala kicun hawsha ay tahay dhibaato ma lahan haddiiba lagu heshiiyo amaba gabadha baa yeesho ama ninkaba uu raalli uga noqdo inay wax isla duubaan laakiin waxa isla duubayaan inay noqdaan wax ama bulshada manaafacaad u leh ama ka dahiran oo ka fog dhaqan xumada iyo anshax xumada taala media tusaale oo kale in gabadhaadii oo iska kala dadaadsanoo gurigeeda iska joogto oo maanta haddii aan rag ajaaniba kale la joogin qof kale oo ay yacni jirkeeda ka dabalato uusan la joogin ninka ilaahay uu xalaash uga dhigay u baneeyeen adigaa tahay in gabadhaadii oo iska jiifto ama iska fadhido ama markaasiba kala daadsan oo isku aadanayn aad camera la daba istaagto oo tiraahdo baraanka waan samaynayaa dhaqan xumadaas ayaa ka mid ah dhaqan xumada loo diiday in lamaane ee media isla soo galaan marka ninkani aanu garan maayo waxa khasbay ama waxa sababay in kadib markii uu go'aanka isaga gaadhay ama arrinka isaga ah uu yiri anu haddaan media la soo gala xaaskii waa waalahay ee hal i xiro kadibna inay tan la imaato media arrinka isaga wixii ka dambeeyay ma garanay taas ayada ayaa la qaada dhigay oo la wadwaday balse taas ayada basiid ay iska ahayd oo aad ay u yareyd waxaa imaatay in la yiri gabadha aad qabto maxamed buskudow nin baa qaba Faransiisa oo muslima masaajidka lagu meheriyay baa kana imaamkii meheriyay baa kana waalidiinteedii baa yacni kana waxbaa kana caddayntaasaa la hayaa gabadhina gabar soo baxsatay oo nin uu qabo weeyaan iska celi hadda ma annaga waalan mase dadkaa waalan masana adduunkii baa waashay yaa waalan waa la kala garan lahay
waxyaabaha aakhir zamanka la arkayay ka mid tahay ama calaamadaha yani muxuu ahaay qiyaamaha iyo ka mid tahay soo dhawaaday marka in yani qof un ceebtiisa saa loo raadiyo qof un laga daba laalaado oo wax kale irsaaqdaba meel kale maysan gelin baan dhihi karnaa irsaaqdaba waxay kusoo hartay keliya in qof aad ku dhegto oo qof xagxagato oo qof cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo reerkiisa aad usoo dhacdo ood wax kaga raadisa bas ah meel kale oo irsaaq ay ku jirto malaha markaan leeyahay ha u malaynin malahadii run tahay laakiin waa sida aan ka arka mujtamaca ay u dhaqmayaan ama aad ka wada aragtaan marka maanta aniga oo nin weyn oo ilaahay iga dhigay qof weyn oo baaliq ah oo dembigiisa la qorayo halkan intaan soo fariista maanta waxaan doonaa iska sheego oo qabiilkaan doonaan caayo oo gabadhaan doonaa aflagaadeeyo oo ninkaan doonaa aflagaadeeyo oo xumaan kasta bannaanka aan keeno oo qof kasta aan ka dabagalo oo raadiyo ceebtiisa taydii xagee jirtaa marka taydii yaa ku maqan waxaa ku maqan dadka oo dhanna taydii raadinaya waayo ninkii ceebaha dadka asturo baa tiisa la asturaa laakiin kan ceebaha dadka fitisha ay raadiya daba guro isagana tiisa meel walbaa la keenaya meel walbay taallaa waadna wada ogtihiin qof kasta oo wax sheego oo media soo fariista soo u gurahayo marka dambe isagaa la keenaa ceebtiisa tusaale dhow haddaan kuu soo qaato ninkan hadda laga hadlayo maxaabiskooda haddaan ka hadlayo ceeb waxaa ugu filan dadkii uu ceebaysan jiray isaga ee uu dhihi jiray marwadiisuu keenay islaantiisuu san yeelay dadku reaction ka samayn jiray gabdhahooda la soo fariistaa waxaa ceeb ugu filnaatay haddana isla markii videoyiisi oo la hayo inuu haddana asaga marwadiisa la soo fariistay taasaaba ceebta meel kaleba u raadinba intaasaa ceeba intaa laftirkeeda yaa ceeba marka ulajeedada muuqaalkan uga hadlaynaa waxay tahay marka arrinkan isaga ah dad baa ka dambeeya dad baa buunbuuninaya anagu garan mayno run iyo been waxay tahay waayo miidiyaha been iyo run lama kala saaro waad maqashay sidaasaad u qaadan ma been baa iyo ma run baa iyo yaa sheegay iyo xaggee ka imaatay ma jirto marka bal clip yar oo xabiskut laftirkiisa uu reaction ka sameynayo uu dhageysanayo muuqaalka oo la keenay sheekhii gabadha waan meheriye lahaa baa isla dhegeysanayna youtuber ah oo Sweden dhinaca ka joogo oo waxay rabaan inay u sheegeen gabadha waa la qabaa nin baa qabo oo faransiisa oo muslina ay soo carartay adiga iyagu u daray waxaas dhan ay wada inay rabeen in ay gabadha xaajiyadayda sharafteeda ku baabiyaan laakiin ma dhacayso soomaa gabadhiinu waxay doonaysaa ninkaa inay guursato salaamu calaykum anigana imaamka masaajidkaan ahay ayadina waa taas waa loo soo xijaabataa hadda ujeedaa dhar fiican bay waa kaas muuqaalka horta la wadwado ee gabadhan lagu ceebeysanaya waa kaa isaga laakiin ma fahmin ujeedadaasi ma fahmin sheekhan wuxuu leeyahay gabadhiina way xijaabatay nin faransiis oo muslim ah lagu meerinaya wataas inkastoo wejigeeda aan si fiican loo arkaynin oo call video ayuu ninkan isla laftirkiisa sheekh wax ku meerinaya ma fahmin diintaas iyada ah iyo howlahaasi ma fahmin si walba oo sheekhani walaayo loo saarto video call inuu wax ka meheriyo oo markhaati badan meesha aysan fadhin oo dhehayni markhaatidaasaa meesha fadhida waalidkeedii baa kaasa kolba haddii lasoo bandhigayo wixii laga meherinaya bakad ay tahay aan la lahayn oo laleeyahay video ka meherinaya ma fahmin hawshaas bal ad waxaad ka fahantay muuqaalkan qaybta hoose nagula wadaag adigoo mahadsan muuqaalkan inoo sheegay